sheekadeenna maanta waxaa ciwaan u ah sidee xulka qaranka waddanka Zambia ay uga soo kabteen burburkii jiilkoodii ugu wanaagsanaa. Wakhti ku qiyaasan 80-aadkii qarnigii hore, Zambia waxay ahayd qaran dhismo weyn ku socdo oo horumar muuqda ka sameeyay caalamka kubadda cagta, iyagoo guulo waaweyn ka gaadhay Masar, Cameroon iyo Nigeria, waxaana iska xaadiriyeen afardhamaadka koobka qaramada qaaradda Afrika sanadkii 1990. balse markii dunida oo dhan lagu ogaaday in Zambia ay soo wado jiil taariikhi ah, waxay ahayd markii ay 4-0 ku xasuuqeen xulka waddanka Talyaaniga ee Azzurri ciyaarihii Olombikada ee 1988. balse riyada Zambia waxay ahayd inay gaadhaan ciyaaraha koobka adduunka ee 1994 iyagoo qorshayaal waaweyn u dejiyey xulka qarankooda. laakiin wixii intaa ka dambeeyey, wax waliba way isbedeleen oo 27 Abriil 1993 xulka qaranka Zambia oo isu diyaarinaya inay la kulmaan qaranka Senegal ciyaar ka tirsan tafsiyaadka koobka Afrika ayaa u duulay magaalada Dakar. hase ahaatee cillad farsamo darteed waxaa dhacday diyaaraddii sidee ciyaartooyga qaranka, waxaana halkaa ku naf waayey 18 ciyaaryahan iyo 10 qof oo kale, waxaana eedda oo dhan dusha laga saaray xukuumaddii xilliga ee Zambia oo diyaarad dagaal ku qaaday ciyaartooyga, waxaana aad looga xumaaday in diyaaraddii ugu wanaagsanayd madaxweynuhu ugu safray waddamo kale. Kalusha Bwala oo ahaa laacibka Zambia ayaa isagu aan ku jirin diyaaraddaas oo wuxuu ka soo duulay waddanka Holland oo uu ugu ciyaaraya kooxda PSV, waana xiddiga keliya ee ka badbaaday xulkii awoodda badnaa. Kalusha ayaa isagu qaaday mas'uuliyadda iyo dib u soo abaabulidda xul kale oo Zambiyaan ah, isagoo ciyaartooy heerarka hoose ah ka soo ururiyey daafaha waddanka oo dhan. balse waxaa la isweydiiyey waxa ay qaban karaan ciyaartooy la soo ururiyey oo markii horeba qaranka aan ka tirsanayn. balse mucjisadu waxay dhacday markii ciyaartooygaas iyo laacibkooda Kalusha ay gaadheen finaalkii koobka Afrika ee sannaddii 1994 keliya hal sano kadib shilkii diyaaradda, waxaana 2-1 koobka uga qaaday waddanka Nigeria ciyaartooy bilaa khibrad ah oo aan ka soo kaban dhacdadii haleeshay. dunida oo dhan ayaa wakhtigaas garab taagnayd Zambia oo muujisay karti, farsamo iyo niyad jablaan, xitaa markii ciyaartooygoodii ugu fiicnaa ay dhinteen oo ay ku soo laabteen ilaa ay gaadheen ciyaartii finaalka, laakiin weli may rumayn riyadoodii ahayd hanashada koobka Afrika. laakiin 18 sano kadib 2012 Zambia ayaa ka qayb gashay koobka Afrika oo ka dhacay Gabon. wakhtigaas Bwala waxa uu ahaa madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta ee waddanka. xilligaasna Zambia si lama filaan ah oo aan cidina saadaalinaynin waxay ugu guulaysteen koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON, goob dhowr iyo 10 kiiloomitir u jirta halkii ay ku dhacday diyaaraddii wadday qaranka Zambia 1994. balse weli cidina may fahmin sirta ka dambaysa nambarka 18aad, waayo Kalusha Bwala waxa uu sitay nambarka 18aad markii uu matalayay xulka qaranka waddanka Zambia. 18 ciyaaryahan ayaa ku dhintay diyaaraddaas. 18 sano kadib Zambia ayaa ku guulaysatay koobka Afrika, ciyaar gaadhay in la isku laato 18 rikoore.